marka darsi haddaan darsi u guda galo waxaan soo dhiganay alkalaamu huwa lafdu lmurakab almufiidu bilwadci si kooban waxaan niri kalaamku waxaa laga doonayaa afar shuruud kow lafdi waa in laga helo cod iyo xuruf la gaadin karo murakab wixii ka kooban ma taraka minka wixii ka kooban laba kelmadood iyo wixii ka badan sida jaa muxammadun almufiid wax aan hee laga daba ornayn بالوضع باللغة العربية أما بالقصد لو يري يعني تفهم إنسان وشرح بان أنت صور أفني مركا وأقسامه كلام كأقسام تيسو اسم وي وفعل فعل وي وحرف حرف وي حرف كاسو جاء لي مثل معنى مركا ما أنت فعل ما ديجانينه حرفنا ما ديجانينه اسم كري أينو ديجانينه سيدوك علامات الاسم والشن يعني علامات لو قرت اسمك ku tacalluqaya ku saabsan waa shan laakiin sheeqa wuu noo naxariisanaya hal ka mid un buu noo sheegay hadda waa shan agow shantii hal ka mid un buu noo sheegay marka maanta halkaa ka mid uu noo sheegay keliya un baynu qaadanaynaa فالاسم يعرف بالخفض والتنوين فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام انت كلية أي نقاضنا فالاسم اسمي يعرف وحال لو غرتا بالخفض هوسدك طبعا علماء اضاد ان بدن دغيستو in walbo sharaxaya wuxuu ku dhahayaa khafdu waxa la yiraahdaa kasra iyo wixii naayibka ah wax hoos dhigan iyo wixii naayibka ah fatxo iyo wixii naayibka ah iyo ya wixii naayibka dabcan arintaana adaaba qiri doona baa macrifta calaamada al-i'raab markii la gaaro adaaba arintaasi arki doona laakiin maanta iyadoo haddana laga daba imaan doono oo lagu qabsan doono aan dhahno khafda waa hoos dhig فالاسم اسمي يعرف وحلو قردا بالخفض hoos dhig wax walba hoos dhigan waa ismi qul a'udhu birabbin naasi siinkaas oo hoos dhignaha maadaama siinkaas hoos dhigan yahay waa ismi aan leenahay annaasi diwaaki kale waa ismi hoos dhigaas ayaana tusaya alla bilkhafdi daadku hoos dhigan yahayba oo idan ismi soo ma aha ها واسمي او محا هوس ديغاس ان قرتي اوكي فالاسم اسمي يعرف وحالو قرتا بالخفض هوس ديغ هذا wax hoos dhigan waa ismi min sagaran laad والتنوين يتنوين تنوين maxaa la yiraahdaa horta Soomaalidu way khaldaan arintana dad badan baan hore u dhicin weeye tanwiin waxay u yaqaanaan laba kordhig laba hoos dhig laba godaal ogow midaas tanwiin ma xaqiiqdi xitaa fiiriya google weydiya tanwiin waa maxay dheh ama ma macna tanwiin iska dhawaade si kooban bal ha ku dhaho laba godaal laba hoos dhig waa ku dhaho wuxuu ku dhihi doonaa waa nuun reeban oo meesha ka maqan ayaa la yiraahdaa tanwiin su'aalahan oo kale muhammadun maxaa saaran daalka maxaa saaran laba godaal saaran laba godaal soo ma saarna ha nuun reebana halka ka maqan ugu oo maxaa way labadan daalkan laba godaalkan saaran hal god waxa iska leh daalka iska leh haye godaalka kalena nuunka iskale arin lagu wareeray ma waa easy ugu tusaalahaan oo kale had muhammadun marhingaadi muhammadun ma meena karay xadun xala karay madun ma meena karay dundaal lama godan soo maaha okay si kale inuu hingaadino muhammadun ma meena karay xadun xala karay madun ma meena karay dundaal la goday nuun noore waa sida kale inuu hingaadino ab Soomaali ahaan u qorno muhammadun wala Soomaali ahaan ku qor muhammadun ودا يو ان marka waxa u dambeeyo waa maxay waxa u dambeeya en ba u dambeeysa marka in haday u dambeeyso de waa noonkii noon ba u dambeeya marka muhammadudan laba godaalkaasi laba godan de godna daalka iskale godna noonkaas u taagan yahay de inta sagaran la tanwiin marka laba kordhig iyo laba hoos dhig iyo laba godaal lama yiraahdee tanwiin waxa la yiraahdaa nuun reeban oo meesha ka maqan mid kalena mid ku darsada midan ha ilaawina weligin tanwiin hadaad aragto laamka ilaali meel laba kordhig laba hoos meel laba kordhigan mise laba hoos dhigan laba kordhigan mise laba hoos dhigan mise laba godan inay meeshaasi al aad geliso iska ilaali su'aalahan kale arrahmatan ma dhacayso maxaa yeelay tanwiin haday meeshan ay ku jirto alif iyo lam ma soo gali karaan inta ma ku dhibi easy yani meel walba tanwiin ku aragto alif iyo lam ka ilaali ali gelin
sidoo kale ismiga waxaa lagu gartaa wadukhuuli al alafdood badana wax walbo al gashay waa ismi qul acuudu birabbina annaasi annaasi maxaa ugu horeeya annaasi al alif kale laan la horeeyo alifkaasi iyo laankaasi waxay ku tusinayaan waxan inuu ismi yahayba aljinni maxaa soo gashay al baa soo gashay alif iyo laan bis waa magac alcilm waxaa soo gashay alif iyo laan alcasri walcasri alcasri maxaa soo gashay alif iyo laan الظهر ألف يلان وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم حنكو صدق إني قواعد الفقهية صح طبعا لحد سنة كسمين حتى يتوي كجران وأتقارن إنسان يعني أشن ما يسبدلي وحلو له دونا وأل تفيد الكل في ألبا مروحي فايدين دونتا عموم marka taad dhigan maynay oo ana markay tahay jinsiye taad dhigan maynay hadda waxaynu dhiganaynaa kaliya wax walbo alif iyo laan soo gasha waa magac ma inta garan laad alif iyo laan ba dumar soo galo waa magac qul a'udhu birabbin naas ala soo gashay waa magac malikin naas ashas ilaahina yani alif iyo laan de waa magac waxasi iyo xuruful qafdi ismiga waxa lagu garto وحروف الخفض وهي وحوي حروف خفضها من ميل والبومين قشو ده اسم دي تصالحان وكله من الشيطاني هذا من الشيطاني وحد لا هاي واسمي marka waxa lagu dhahayaa sababta u tiraaday min ash-shaytaan waa ismi waa maxay waxa dhahaysaa marka horta koow min baa soo gashay koow bis waxa leedahay ismi waa hadii u fiirso meeshan saddex calaamadood ayaynu ku haysanaa waxa la rabay kaliya hal calaamadood hal calaamad kugu filnad laakiin ka badan ayaynu haysanaa baan ku doodi karnaa waxaan leenahay min ash-shaytaan waa ismi haye maxaa cadeen u haystaan min baa soo gashay koow ash-shaytaani ashhad ودخول الالف واللام سمرين mid kale mid ogaada ودخول الالف واللام شيء lagu haystaa ودخول ال ayaa ka fiicnayd in la yiraahdo yani ودخول الالف واللام ودخول ال umbu meeshii algasho umbu ka wadaa marka inuu xoogaa ودخول الالف واللام waa hadal dheer bad mooda ودخول ال xataa culimada siireen kitaabka qorayaan ودخول ال saasana ka fudud marka min ash-shaytaan horta min baan ku haysanaa inay min ash-shaytaan inay ismi tahay aynu cadeynaynaay min ash-shaytaan min baa haysanaa koow ash-shaytaan al baa gashay laba shaytaan nuunkoos dhigan saddex hoos dhig baynu haysanaa al baa gashay minna way gashay saddex calaamadood oo inay min ash-shaytaan tahay ayaan haysanaa inay ismi tahay okay min al-masjid al-haram min al-masjid al-haram hada dilu yiraahdo ismiya maxaa dhahaysaa hawa ismi marka waxa lagu leeyahay كان عضين اللي هو حرب إن لا سويه واي هدي اللي سويه واي الله واحد كستبه من الشيطان اسمها هاي صح ضميرك اسكن قلنا لها مد عالم فقيه ولا ما شاء الله مركا من المسجد الحرام واسمي هاي محا عضين وهي سمك لو دي مركا waxa leedahay horta minta ka bilaabi iidaha ka boodin horta iidaha ka boodin min ko من المسجد الحرام ربا من المسجد الحرام انت اسمي aynu ku heli doono bal fiiriya min ko المسجد البا gashay laba ka dhig daalka hoos dhigan yahay igu dar 3 al-harami alba gashay igu dar miimka ugu dama hoos dhigan igu dar 5 calaamadood ayaan ka helay inay min al-masjid al-haram ismi tahay ma sha Allah alayk sidoo kale min waxay ku tusinaysaa meeshii laga yimid from meeshii laga yimid way yani min meesha laga min al-masjid al-haram meesha laga yimaado way ilaana meesha loo socdo way إلى وهي ماشي الله صعود من المسجد الحرام ما حاجة ضمبية إلى المسجد الأقصى إلى هذا واحد بيهوس لي من واحد بيهوس لي يعني حروف الخفض مركل الولاية أما حروف الجر أما يعني حروف الجر أما حروف الخفض مثل الله الله فرت مت هذا حروف الجر هذي الله هي حروف الخفض دي الله أو نسكم يعني حروف الخفض هي حروف الجر وأسكم معنا جركنا بسرين تستمع له جركة بصريين تأسلم على خفضها وكوفيين تأسلم على مركا من حروف الخفض أم حروف الجر متكا ده وحبيه هوس لغان حروفها وات من الشيطان من تن الشيطان نونكا سيهوس لكتي من المسجد الحرام وكا حرامي هوس لغان من الشيطان وحا هوس لغان إلى المسجد الأقصى وكا مركا شقيق قبانيا وحوي وحروف الخفض الوليبة حروف وحوس لغي أيغا وحوس لغان
marka hadii marmarka qaarna hadii aad aragto inay hoos dhigi waayeen oo hoos dhigi ka muuqan waayo u qaada inay xuruftan daashada لأن هاد مادن قارين sababta yani marmarka qaar waxaad arkaysaa in wixiiba ay hoos dhigan ba marka sababtana gadaal ayaynu ku sheegaynaa insha allah maynu arrinta maynu gaarin hadda waxaan taaganahay ka hadalno إلى المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عليه إلى المسجد الأقصى واسمي maxaa ismi maxaa in إلى المسجد الأقصى in ismi tahay maxaa cadayna u haystaa marka waxaan u haystaa waxa way horta ilaa gashay هي المسجدنا دي والبا غشي wax walbo al gasho waa ismi saasa la sheegay hay bedelkan hoos dhigay hay al-aqsa tanagada al-aqsa xataa laftirka dhigi kartaa waa ismi sax laakiin ila al-masjid aan soo qaadano عن تفيد المجاوزة عن إذن waxay faa'iideynaysaa kala carar iyo wax kala baxsan ay faa'iideynaysaa ramayt sahman عن القوس dada salaano kale عن القوس waxaad leedahay ismi waay inay ismi tahayna waxaan u haystaa cadayn can baa gashay haye hadwa kaas inta bisa ku filnagow laakiin waxaad dhihi kartaa haddana عن القوس inay ismi tahay war cadaymo badan baan u haystaaba haye can baa gashay haye al baa gashay haye siinkana hoos dhigan yahay meeqa saddex calaamood hal bisa laga rabay okay على وحروف القبض وهي من وإلى وعن وعلى على اتصال هذا اوكي انه وضعت الرأس على الفأس ساسو ما هين بس وضعت الفأس على الرأس من رأسي يا سهري من فأسي يا سهري يعني وحكوت على كتابك السركة وضعت الرأس على الفأس يعني ايش هتكردي ايش هتكتورتي وهات اصيبتي وي معنى هذا مركا على الفأس اسمي واي هي على الفأس ان اسمي تاي ما عاد انه هيسا بل اديشك idinka xitaa way sheegi kartiin waxaad dhahaysaan dee calaa horta ka boodina calaa kow alfa'sina albaa soo gashay haye siinkana hoos dhigan yahay bes warsamo fududa maasha allah fudeyd waa dhaafade fudeyd dhaafo waay wafi fi iyo mar qaar waxay noqon kartaa fi waxay noqon kartaa mar afkay noqon kartaa في هذا مر فعل فاعل نقول مر واكنا او شقadeeda ay qabsanaysa wax bay hoos dhigi marka fi saddexda gudbo way gashaa huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jamii'a marka fi al-ardi ismi miya ha saas baad leedahay ismi miya fi al-ardi ha yani maanta inta la dhahay inta biswa wax la laqbeenay kan maaha inay waxan ismiyaas sheegun shaqada la qabana inta Soomaaliya fi al-ardi ma ismiya ha haye horta fi aa gashay fiido inay hoos dhigtaa ajrumi ku soo qaatay hay oo maanta qaadanay fiidi iga bilaabay al ardina haddan soo marayo wax walbo al gasha alif iyo laan wixii galaba waxa la yiraahdo ismi hay deedaadkana hoos dhigan yahay bis meeqa calaamad ay saddex haysta ma sha Allah nahnu fi al-masjid ma ismiha في المسجد أنك بالله في المسجد في باقي شيء كو المسجد ألف إلا ناقي شيء لبا ذلك أنا يوصل إليه نحن ذا كما الله هذا أنك بودو مالك الأمور تريدون ربا وحيف إذا سيدنا وحبضا يوحيربا ربما يود الذين marka ruba waxay faa'iideynaysaa mar qaar waxay noqonaysaa wax yar mar qaar wax badan yani macnaheeda dabcan wixii ka dambeeyay un bay ku xiran tahay ruba rajulin waa tusaale in badan la soo qaataan laga tagin ba ruba rajulin kariimin laqaytu alla badana nin sharaf leh intaan la kulmay marka ruba rajulin kariimin laqaytu waxa leedahay waa ismi hay maxaa calaama de ruban ku haysta horta koow rajulinna wix walbo laba godan iyo laba hoos dhigan iyo laba kor dhiganna waa ismi la yiri wixii tanwiin ahba ismi la yiri hay rajulina de way tanwiinan ka helo way hoos dhigan tahay hay waa ismi sax kariiminna waa ismi oo maxaa de waxa ka muuqata tanwiinti laba hoos dhigi ma sha Allah albaa'u waxa ka loo garna ismiga waxa weeye waxna hoos dhiga xuruful jirka xuruful khafda aynu mareenaay billahi waa ismi بالله واسمه سيدي كنا قطي ورت بعض يقبل الله كو الله ذنه
dee al sooma gelin alif iyo laan sooma gelin haa iigu dar billaahi hada sooma hoos dhigna haa ileen badaasa shaqo qabatee saddex calaamadood oo ay tusinaya ismi inay tahay billaahi ayaan ka haystaa ba'da kow ashaas oo gashay iyo hadaas oo hoos dhigan war maxaa ka fudud darsigan alkaafu alkaafuna waa sidoo kale tusaalahaan oo kale ana kalasad ana kamithli kalasad marka kalasadi xuruuf aljar waay ama xuruuf alkhafda waay marka waxaad leedahay kalasadi kaafka horta waa xuruuf aljar haye waa ismi kow alasadi soo maahan al baa gashay laba asadi daalka sooma hoos dhigna haa saddex calaamadood baan ku haystaa ana kalasadi inay ismi tahay hadda ogow hal un baa lagaa rabi laakiin intaasoo dhan baa heshay okay wallaamu laamkiina tusaalahaan oo kale lilaahi oo kale hadan lilaahi waa ismi waxayna calaamad u tahay laankaasi ayay u tahay وحروف الخفض وحروف القسم وحروف القسم هي حروفتي دارت أهي حروفتا دارت أي علامات حروفتا دارت أي علامات اسمي أولية وحروف القسم حروفتي دارت أهي وحوي والله بالله تالله والله أو ووقع بالله أو بعض تالله أو هي تاضع والعاديات قرآنك كبح هذا مركا والله تصالنا إذا أصوغ هذا النبأ والله واسمي هاي محاكو تصيني ووغا نرتي قبل الله واو القسم وي ووغا شغل وقبانيا وإنو دي شغيس وقبصانيا والله كو إيقا بالله برت الله هنا الباك شيء لا هنا هذا هو صدقان تهي مركا والله هنا اسمي تهي كان سالم كل ورو ساسا ليلهي بالله هدي الورو تصالي كنا بالله وما كبودينا بالله وابد قرنيساني تالله هنا اسمي تهي كو إيدي بالله ورت تادي الله هنا ال يقدر هي هذا هو صدقان يقدر بالله هنا دي بعض يقبل الله هنا سماهن أشا قدر هذا اسمه صدق تالله لأكيدن أصنامكم والله سنميدنا بربرين نقبان كدي سنميدنا متبري بمايو تالله وكا مركا انت مثلا قادنينا maanta علامات اسمي لو غرتو waxaan qaadanay hadda فالاسم يعرف بالخفض والتنوين iyo حروف الخفضه iyo qasamkii marka فعل iyo xaraf ku dareemayno intaan waa muhiim dabcan inaad fahantaan dabcan waana easy aad buu fududahay marka meeshaad fahmi weysaan alxamdulilah whatsapp kan weeye waa tusaalaanka dad baa had maalin su'aalo iminka ka jawaabeen meelo xogaa la sikatay qofkii xogaa la sanbir ruxtayna meeshaas kuma eeganayno waan ka saxay xitaa ma jiro qof intuu xogaa su'aasha xogaa daba maray aan ku eegay waan ka saxay alxamdulilah wax badanna ma ahayn sidoo kale dhammaantiinu idin bilaaban tahay naxwada dhammaantiinaba waa idin bilaaban tahay marka darsigan halkaasaan kusoo koobaya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu